حقاير يا ربا إن عن كهالله كالفدي هذا أفرتي بلودان صور عفني وحي عن كبرني هي هذا ماشى جوجنو ماشى عن هكسرين وحن هكسرين سنة كان إنه إلهي نوغدي سنة ونكسر أو خير قبح إنه إلهي نوغدي سنة عن كشقين دبوجسين تا ومدة صوماليات إنه إلهي نوغدي سنة دبوليس وعن ذلك ينسلله مركان ليه هاي دبوجسين وواحد يقوم يمسن ومدة الشعب كنا نجسوا جايان وحواه ريد بوجسين دحلنا نهارتنا كبل عضته وحن ربعنا المدينة شيء وحقيقة أقل كسره يقولها شعبك وحلو بهاي دبوجسين تودينا بلاونه دولة هذا وحن هيا وقد أقل كسر صدرين أو إيجوجين وضشقين قولها شعبك سيدي محن كورا هذا دولة قبل الجدي إيش قد النوع جوجين الله marka hadda dhexdeena weeye wali waxaan u galeynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno shacabkeena Soomaaliyeed wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isku soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha soo qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka afar bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigaan furmaayay oo aan ka hadlaynay in aan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan mayno waxaan u yeeray gudoomiyaha Maxamed Mursal iyo maxaan ku raahdaa Cabdi Xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin ah inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqanayaan markaasay ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dib u heshiisiin u sameeyno hadduu Ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa barnaamijyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya hadduu Ilaahay yiraahdo waa dab waxaan ku tuhumaynay xoogaa markaas naftigeena waa markii dawlad goboleedyada yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dawladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dawlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhaxeeya iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha ah oo aan u sharaxnay aan ku niri Soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intii rabta nagu qaadato ma ogolin inay cidda soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intii rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka anagu nagu jira anaga la heshiinayna cid isku kay khasbaysan ma laha cid damaanad noo kala seexaysan ma laha haday damaanad macno leedahay horaana loogu kala seexay waliba dibkii wali qaar kamid waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay anaga dhexdeena inaan damaanad isku noqono oo dhexdeena ka heshiino cid walbana u sheegno anaga iskale hawlaheena anaga heshiinayna anaga waala taasa keentay ninkaas odaga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arintaas arin aan ka caroonay oo aan wanaagsanay oo si xoojinaysa runtii difference farqiga u dhaxeeya dawladda dhexe ama dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada haddaba intaas waxa ka dambeeya hadalkayga ku soo gabagabeynay taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda inaga sugayso oo annaga in laga sugaayo inaan dadkeena isu keenno koow annaga iska bilaawno dhexdeena waxa la wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeena iska daaweyno